tobankii nin ee ikhtiraacay waxyaabaan looga horeyn. Si aan u bilowno muuqaalkan daawada haddaa ku cusubtay kanaalka subscribe saar. bilowna ninka koowaad magaciisa waxaa la dhahaa James Hargreaves. waxa uu dhashay Ingiriiska British wuxuuna dhashay waqtigu markay December 13 dalka UK. waxa uu dhintay April 22 isla dalka UK. waqtigu uu dhintay waxaa 58 jir. wuxuu ikhtiraacay dawaarka sanadkii 1764. waqtigu wax ikhtiraacayna wuxuu ahaa 44 Aan ku xigsiina ninka labaad waxaa la yiraahdaa James Watt. waxa uu dhashay British Scottish. wuxuu dhashay January 1736 dalka UK. wuxuu dhintay August 1819. waqtigu uu dhintay wuxuu ahaa 83 jir. waxa uu ikhtiraacay mashiinka wax kuleeliya amba heaterka 1769. waqtigu wax ikhtiraacay wuxuu ahaa 33 jir. ninka saddexaad ee shaashada inay ka muuqdo waxaa la yiraahdaa Alexander Graham Bell. dalka uu ku dhashay waxaa lagu xaqiijiyay American Scottish amba British Canada. waxa uu dhashay Maaris 1874 dalka UK. waxa uu dhintay August 1922. waxa uu ikhtiraacay telefoonka sanadkii 1876. waqtigu uu dhintay waxa 75 jir. waqtigu wax ikhtiraacayna waxa 29 jir. faradan ay shaashada inooga muuqdo waxaa la yiraahdaa Guglielmo Marconi. waxa uu dhashay Italy. wuxuu dhashay April 1874. waxa uu dhintay July 1937. waqtigu uu dhintay waxa uu ahaa 90 jir. wuxuuna ikhtiraacay raadiyoga sanadkii 1896. waqtigu wax ikhtiraacay wuxuu ahaa 22 jir. aan soo qaadano ikhtiraacyaasha shanaad. ikhtiraacyaasha shanaad ee shaashada inay ka muuqato waa laba nin. labada nin waxay ahaayeen walaalo. ka weyn waxaa la yiraahdaa Wilbur. ka kale walaalkiisa ka yar waxaa la yiraahdaa Orville. waxa uu dhashay America. Wilbur waxa uu dhashay April 16 halka Orville uu dhashay August 19 halkaasoo lagu garanay inay kala weyn yihiin 4 sano. dhimashada waxa uu dhintay Wilbur May 1912 halka Orville dhashay January 1948. da'da markay dhinteen Wilbur waxa uu ahaa 45 jir halka Orville ahaa 77 jir. halkaasoo lagu garanay in Orville ka dambeeyay xagga dhimashada. waxay ikhtiraaceen mashiinkii amba diyaaradii ugu horeysay ee dhulka ka kacda amba duusha sanadkii 1903. da'da ay ahaayeen waqtigii ay ikhtiraaceen Wilbur waxa uu ahaa 36 jir halka Orville ahaa 22 jir. Wilbur ayaa Orville ka weynaa 4 sano sidan hore u soo qaadan. Videoga dheeraaday 5 nin ee dambe waxaan kaga sheekeyn doonaa qaybta dambe. la socod daawada.